kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Sidee ayuu islaamku ku gaaray dalka Senegal yaa se gaarsiiyay? Waa ciwaanka sheekada aynu kaga hadli doono muuqaalkeena maanta. Barnaamijkeena maanta waxaan gabi ahaantii ku qaadanaynaa sida uu islaamku ku gaaray waddanka Senegal ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika, kaasoo maanta shacabkiisu ay 95% yihiin muslimiin. Waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaaro ee ku soo dhawaada xalqadeena maanta. islaamku waxa uu waddanka Senegal gaaray sanadkii 440 taariikhda hijriyada oo haatan laga joogo in ka badan 1000 sanadood. waxaana mahaddeeda iska lahaa caalimkii Marookaanka ahaa ee Cabdullaahi bin Yaasiin al-Sanhaaji. inta aanan gudagelin muuqaalkeena maanta, daawadaha sharafta leh waxaan kaa codsanaynaa inaad ku soo biirto barteena YouTube-ka oo aad subscribe saarto. sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalkan aad like saarto si aan u ogaano bal kuwa ay yihiin muuqaalada ay saaxiibadu xiiseeyaan. mahadsanid. caalimkii Marookaanka ahaa ee Cabdullaahi bin Yaasiin al-Sanhaaji waxa uu aasaasay xiriir loo yaqaanay xiriirkii Senegal, waxaana xilligaasi uu ku aadanaa isla waqtigii uu Cabdullaahi bin Yaasiin aasaasay boqortooyadii dowladdii Muraabidiinta. waxaana boqortooyadani barbarka Marookaanka ahayd ay xarunteedu ahayd bartamaha Morocco, iyadoo isku ballaarisay dhanka waqooyi ilaa ay gaartay Andalus. markii uu islaamku gaaray dhulka Senegal, waxaa shacabka reer Senegal ay ahaayeen kuwo dabka caabuda, waxaana ibnu Yaasiin uu bilaabay inuu baro diinta islaamka, wuxuuna ku kala xukumayay shareecada islaamka oo fududaysay habnololeedkoodii. xiriirkaasi fidinta dacwada islaamka ee ay wadeen ibnu Yaasiin iyo raggiisii waxaa ku lifaaqnaa xiriir kale oo ganacsi oo saxaraha bartankiisa ka socday, iyadoo qabaa'ilada reer Senegal ay badeecadahooda ka iibsan jireen raggan Carbeed, iyaguna waxa ay doonaan ka soo iibsan jireen. waxaana intaa dheeraa dhalinyarada Senegal oo deegaanadooda ku soo noqon jiray iyagoo soo faa'iidaystay aqoonta islaamka, kadibna waxa ay diinta islaamka gaarsiin jireen qabiiladoodii. boqortooyadii islaamiga ahayd ee Muraabidiinta waxay ku fiday dhulal badan ilaa ay ka gaartay dhulkii boqortooyadii galbeedka Afrika ee Tukolor ee ka talin jiray dhulalka haatan loo yaqaano Mauritania, Senegal, Mali, Nigeria, Niger, Chad ilaa xuduudda Darfur ee Suudaan. waxaana magaca Tukolor uu ka yimid oo ilaa maantana loo yaqaanaa magaalo ku taalla webiga Senegal. boqorkii Tukolorka ee lagu magacaabi jiray Wardiyaabi waxa uu islaamka ka guddoomay ganacsatadii muslimiinta ahayd, wuxuuna qaatay diinta islaamka isagoo dadkiisii oo dhanna diinta soo geliyey, waxaana uu halkaa ka aasaasay xukun islaami ah. waxa uu boqorkii Tukolor xiriir iskaashi la yeeshay boqortooyadii Muraabidiinta, waxaana ay furteen boqortooyadii Gaana, isagoo halkaasi ka sii waday fidinta diinta islaamka. culimmadii Tukolorka ayaa bilaabay inay dacwada islaamka gaarsiiyaan daafaha waddanka Senegal, waxaana si xawli ah uu islaamku ugu fiday Senegal ilaa ay diinta islaamku noqotay diinta ugu shacbiyadda badan dalkaasi, ama ay aaminsan yihiin inta badan dadka reer Senegal. waxaa bilowday madaaris islaami ah oo laga furay magaalooyinka iyo tuulooyinka Senegal, kuwaasoo lagu baranayay diinta islaamka iyo xoogaa carabi ah, waxaana madaaristaas macallimiin ka ahaa culimo ka socotay Mauritania iyo Senegal. jiilal badan oo reer Senegal ah oo xifdisan Qur'aanka Kariimka, shareecada islaamka iyo fiqiga ayaa halkaasi ka soo ifbaxay. markii gumaystihii Faransiisku soo galay Senegal, waxa uu la kulmay iska caabin islaami ah oo aad u daran, waxaana Faransiisku uu bilaabay inuu xiro madaaristii islaamiga ahayd si shacabka reer Senegal ay niyadda uga jabaan, isla markaana uu ugu muquuniyay inay isdhiibaan. hase yeeshee taasi ma wiiqin in Senegal ay ka laabato diinta islaamka. isku daygii Faransiisku ma guulaysan. Senegal tamaantana waa mid badideedu islaam ah, dadkeeduna ay yihiin dad nabadeed oo ilbax ah oo muruqooda maala, edabta iyo akhlaaqda diinta islaamkuna ay ka muuqato. Senegal waa dad ku dheggan caqiidada islaamka. haddii aad tagto dalalka horumaray, waxaad durbadiiba garanaysaa qofka Senegaaleeska ah oo lagu yaqaano dharka hiddaha iyo dhaqanka iyo tusbax dheer oo madow oo ay ku wardiyaan raggooda iyo dumarkooda meel walba oo ay marayaan, haddii ay saaran yihiin tareennada, basaska, diyaaradaha iyo haddii ay lugaynayaan intaba. waana dad nadiif ah oo aan lagu aqoonin wax rikoor xun ah iyo dembiyo toona.
daawadaha qiimiga badan oo aad ku mahadsan tahay inaad nala soo gaartay gabagabada muuqaalkeena maanta. walaal haddii aad in yar ka korodhsatay muuqaalkan like saar, haddii aadan hore noola jooginna soo dhawow oo ku soo biir barteena YouTube-ka oo subscribe saar. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. waa inoo berri iyo muuqaalkeena xiga insha Allah.